Somaliland ayaa laga reebay koobka adduunka dalalka aan la aqoonsan sababta ay ku dhacday iyo rajo la'aanta ciyaaryahanadii isdiyaarinayay muddada dheer ayaa la baahiyay. Jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday madax-bannaanida ee Somaliland kamid ah dalalka sanadkan u tartamaya koobka adduunka wadamada la aqoonsaneen ee dunida ka jira ee loogu magac daray CONMEBOL kaas oo ka dhacaya wadanka Ingiriiska. Somaliland ayaa ka qayb gashay tartankii ugu dambeeyay ee CONMEBOL ee labadii sanadood ka hor lagu qabtay wadanka lagu magac daray Abkhazia halkaas oo xulka qaranka Somaliland wacdara ka dhigay markaana warbaahin dunida ku soo jeediyay qadiyada Somaliland dad badan oo aan hore u maqal ay waqtigaasi ay barteen. ma jirto warar soo baxaya ee xiriir kubadda cagta ee Somaliland iyo UK sanadka 2016 abaabulay kooxdii ka qayb gashay koobka adduunka dalalka aan la aqoonsaneyn ee CONMEBOL oo ay kamid ahaayeen 4 ciyaartooy oo Hargeysa ka tagay iyo inta kale oo wadanka Ingiriiska laga kaxeeyay hase yeeshee ciyaarnadii sanadkaasi ka qayb galay ayaa niyad ka muujiyay in dalkoodu ay dunida bareen haddana ka maqan yihiin koobka. waxaa la soo warinayaa inay jirto qorshe ku saabsan inay taasi dhici karto waxyaabaha markaasi lagu baahinayo. wasaaradda ciyaaraha ayaa 2016 waxay baahisay in Somaliland ay doonayso inay ka qayb gasho oo koobka adduunka wadamada aan la aqoonsaneyn ee wali baadi goobaya ictiraaf. gudoomiyihii hore ee guddiga Olombikada Somaliland Xasan Waraabe Cabdi ayaa kamid ahaa ragii isaga adag u shaqeeyay 2016 Somaliland ka qayb gasho tartanka CONMEBOL ee kuna guuleystay loolankii ay u galeen ayaa xusay in sanadkan loogu deeliyay loolankii ka qaybgalka ay wadeen ay ku saabsanaa tartanka oo sanadla ah ayaa magaciisii hore u sii kacay waxaana ciyaarta finalka qaban doona garsooraha reer England ee lagu magacaabo Mark Cutterback oo hadda ka shaqeeya wadanka Saudi Arabia. waxaa la soo sheegayaa in imika wixii ka dambeeya aysan noqon karin suurtagalnimada ka qaybgalkooda iyadoo tartankan uu aad u adkaaday. warbaahinta dowladda Ingiriiska sida BBC-da ayaa isku jirta idaacado iyo telefishinno iyo website ayaa si weyn ugu qortay tartanka ayaa si gaar ah u falanqeeyay dalalka qaybgalaya kamid ah waliba taariikhda qadiyadaas ay ku doonayaan madax banaanid aqoonsi ay dunida ka helaan. wadamada koobka adduunka 2016 ka qayb galay CONMEBOL ee wadamada la aqoonsaneyn waxaa kamid ahaa Punjab oo kamid ah dulweynaha wadanka Hindiya hase yeeshee dad ka soo jeeda gobolkaas ay ka badan yihiin 125 milyan qof ay indhaha warbaahinta si weyn u haysta waxaan xiise u sii yeelay xulkooda ay kamid yihiin injineero iyo dad magac leh oo iskooda u shaqeysta wadanka Ingiriiska. muddada uu soconaya ayaa halka lagu qabanayo 31 bishii May ayuu tartanka furmay ilaa iyo 9 June ayuuna socon doonaa. goobta waa London UK. wadamada sanadka ka qayb galaya Abkhazia, Brawa, Kasadia, Ilan, Fenia, Kabelia, Karbatala, Matiblan, Northern Hobros, Badenia, Punjab, Saqlif, Lane, Tamilia, Iliam, Tibet, Tulivan, United Korea iyo Japan iyo Western Armenia ayaa dhamaantood ah wadamada aan la aqoonsaneyn ee wali doonaya madax banaanida ee tartanka ka qayb qaadanaya. group A waxaa ku jira xulalka wali aqoonsiga raadinaya Brawa, Ilian, Fanin, Temin iyo Kasadia halka group 2 ay ku jiraan Abkhazia, Northern Hobros, Karabatelia iyo Tibet. groupka 3 waxaa ku jira Bednia, Silk, Lane, Tulivia iyo Matlan. group 4 Punjab, United Korea in Japan iyo West Armenia iyo Kabylia ayaa ku jira. koobka adduunka 2016 ayay halkii Somaliland kaga joogtay koobka adduunka ayaa lagu qabtay wadankaasna dooni isku taaga ah ee lagu magac daray Abkhazia. 2016 waxay Somaliland ugu joogtay group E waxay ku wada jireen Zambia iyo Punjab oo hadda magac weyn ku yeeshay tartanka. jadwalka 2016 dhameystirna ayaa ah A waxaa ku jiray Abkhazia, Coquitlam Island, Western Armenia. B waxaa ku jiray Croatia, Slovenia, Lenin, United Korea and Japan. C waxaa ku jiray Northern Hobros, Armenia. group B waxaa ku jiray Punjab, Syria iyo Somaliland.